dhalinyaro ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta qaybtii labaad ee taxanaheennana waxay noo joogtay xamdiya oo sidoo kale ka heshay wiilka habeenkii oo dhanna ka fikiraysay asaga intay gabadha wakhtigaa jiiftana waxay ka fikiraysay siday ula kulmi lahayd sacdi maadaama hooyadeedii arrintaa ka hor istaagtay ayada si kastaba ha ahaatee waxay go'aansatay inay wiilka caadi ula kulanto si ay jacaylkeeda ugu sheegato ayada subaxdii xigtana ayada iyo eedadeed waxay aadeen guriga umuraadi si ay meesha uga soo shaqeeyaan ayaga wax yar kadibna fariida markay umuraadi la kulantay naagtaa waxay ayada u sheegtay inay dhowaan u safri doonto maraykanka sababtoo ah ninkayga ayaa doonaya inaan meesha wada degno annaga laakiin anigu waxaan doonayaa inaan dalkayga sii joogo maadaama aan halkan ku faraxsanahay sidoo kalena ma doonaya inaan meeshan ka tago maadaama aan hadda derisnahay saaxiibaday umu axmed si kastaba ha ahaatee umuraadi fariida waxay kula talisay gabadhan intay da'yar tahay inay wax barto intay la shaqayn lahayd ayada laakiin fariida waxay u sheegtay abtigeed inuu doonayo in gabadhan uu mar dhow nin ku daro ayada sidoo kalena la guursado muddo kadibna xamdiya iyo fariida markay shaqadooda soo dhammaysteen waxay soo aadeen gurigooda ayagoo wata cunto ay ka soo qaateen guriga wakhtigaana intay labadooda waddada socdeen xamdiya fariida waxay weydiisay sababtay u celin weysay alaabtii ay ka soo qaaday guriga umu sacdi laakiin fariida ayaa iyada u jawaabtay maxaa alaabta uga walwalaysaa adiga maxayse tahay brobleemka ay kugu hayso si kastaba ha ahaatee xamdiya si aan loo fahmin way aamustay ayada wakhti kadibna markii habeenkii la gaaray intay guriga wada joogeen fariida si lama filaana waxay ugu yeertay kariim ayadoo ku qaylinaysa asaga sidoo kalena ninkeeda wakhtigaa waxay u sheegtay umu fariida inay ayada siisay warqad taasoo ay u qortay wiilkeeda waxaana doonayaa inaan wiilkan goobtaa geeyo maadaama isbitaalka uu yahay mid firii ah muddo kadibna fariida iyo ninkeeda oo keliya markay noqdeen way ku qaylisay asaga ayadoo kule maxaa isbitaalka u aadi weysay aniguna wax dhibaato caafimaada ma qabo laakiin qofka dhibaatada caafimaad qaba waa adiga marka waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan tagtaa isbitaalka sababtoo ah anigu inaan ilmo dhala ayaan rabaa wakhtigaana ayada iyo ninkeeda maadaama ay isfahmi waayeen way wada doodeen ayaga laakiin intay wada hadlaayeen waxay u sheegtay hadduu isbitaalkaa taga inaan wax lacaga laga rabin asaga sidoo kalena waa inaadan ka xishoonin caafimaadkaaga haddana labadeenna waxaan wada joognaa muddo 14 sano wax ilmaana iskuma dhalin annaga marka waa inaan dhibaatadeenna xallinaa ugu dambayntiina waxaan kaa rabaa berito inaad adiga u tagtid ditoormo si uu kuu daaweeyo adiga si kastaba ha ahaatee ninkeeda wuxuu ayada ku yidhi sidee ku ogaatay qofka cilladda ay haysato inaan aniga ahay isla markiina fariida waxay asaga u sheegtay 14 sano ay wada joogeen inay mar walba isbitaal tegaysa ayada dhakhaatiirtuna waxba igamaysan soo sheegayn mar walbana waxay ii sheegayaan inaan caafimaad qabo aniga laakiin muddada adigu weligaa isbitaal ma aadan tagin sidaa darteedna qofka ay cilladda haysato waa adiga marka hadda waxaan kaa rabaa inaad isbitaal tegto oo warqadan aaqaayata adiga ugu dambayntiina ninkeeda arrintaa wuu ka aqbalay ayada dhinaca kalena xamdiya intay habeenkaa hurdaysay waxay in badan ka fikiraysay sacdi maadaama wiilka ay jacayl daran u qaaday ayada sidoo kalena hadda waxay daawanaysay xidigaha ayadoo mar walba niyadda ku haysa wiilka sidoo kalena wakhtiga waxay ilaahay ka baryaysay inay eedadeed sundus dhimato si ay aabaheed mar kale ula midowdo ayada sidoo kalena ay meeshan uga xirowdo si kastaba ha ahaatee wakhtigaa hadalkeeda way ku laabatay ayadoo leh haddii aan meeshan ka tago sideen sacdi ku helayaa aniga sideese mar kale ku arkayaa wejigiisii quruxda badnaa si kastaba ha ahaatee xamdiya hadda waxay garowsatay eedadeed fariida inay tahay qof wanaagsan oo mar walba u naxariista ayada laakiinse eedaday waxay nacab tahay sacdi mana garanayo sababta xamdiyana intay habeenkaa arrintaa ka fikiraysay si lama filaana waxay u maqashay hadalka ay ku wada sheekaysanayaan abtigeed iyo eedadeed arrintaa darteedna meeshan waxay ka ogaatay dhibaatada caafimaad ee haysatay abtigeed taasoo keentay inaysan muddo ilmo dhalin ayaga subaxdii xigtana xamdiya markay soo kacday waxay bilowday inay dharka guriga yaalla dhaqdo ayada laakiin wakhtigaasi lama filaana waxa ayada ugu timid fariida waxayna u sheegtay berito inay aadayaan guriga umu faaduma aniguna maadaama aan daalana waxaan kaa rabaa inaad guriga adiga aad sidoo kalena aa hawshaa soo qabatay adiga xamdiyana markii hadalkaa maqashay aad bay u farxday ayada maadaama ay muddo kadib baxayso intaa kadibna si halhaleel ayay arrinta uga aqbashay eedada muddo kadibna waxay aadda guriga laakiin si lama filaana waxay ugu leexatay guriga umu sacdi si ay u soo aragta wiilkii ay jeclay si ay arrintaa marmarsiyo ugu samaysatona marka hore waxay tagtay guriga umu faatma markay aragtay inuusan qof bannaanka jooginna si degdeg ayay meesha uga soo laabatay ayadoo aadaysa guriga umu sacdi intay guriga u sii socotana aad bay u faraxsanayd ayada
muddo kadibna markii guriga albaabkiisa garaacday si lama filaana waxay u maqashay codka Sacad wax yar kadibna asaga ayaa albaabka ka furay isla markii Xamdiya wejigiisa aragtana aad bay u faraxday intaa kadibna wiilka waxay u sheegtay inay eedadeed soo dirtay intaa dabadeedna waxay weydiisay inay shaqo u taalo ayaga haddii aysan wax shaqo idiin oolinna waan iska laabanayaa aniga laakiin waqtigaasi lama filaana Sacdi ayaa gacanta uga qabtay ayada asagoo guriga soo gelinaya Xamdiya waqtigaana labadooda indho jacayl ayay isku fiiriyeen ayagoo midba midka kale uu quruxdiisa la yaaban yahay waqtigaana si lama filaana wiilka hooyadii ayaa ula hadashay ayadoo kule yuu yahay qofka albaabka soo garaacay isla markiina gabadha ayuu bannaanka u saaray asagoo hooyadii u sheegaya inay Xamdiya tahay isla markiina hooyada ayaa u timid gabadha ayadoo kule maanta idiima yeeran wax shaqaana iima taalo aniga gabadhaydii sidoo kale waxaan idiin baahanahay maalinta jimcada maadaama aan casuumaad leeyahay aniga haddana xoogaagaan lacagtaa sii qaado oo gurigaaga dib ugu laabo adiga laakiin Xamdiya ayadoo u mahadcelinaysa waxay iska diiday lacagta kastaba ha ahaatee Sacdi ayaa arrintaa ku adkaysay ayadoo kule gabadhaydii ay lacagta qaado ugu dambeyntiina Xamdiya lacagta ayay meesha ka soo qaadatay ayadoo dib uga soo laabanaysa guriga intay wadada maraysana waxay bilowday inay ka siday eedadeed lacagtan uga dhaadhicin lahayd halkay ka soo heshay ayada intaa kadibna waxay ku laabatay guriga Faadma ayadoo hawsheeda meesha ka qabsanaysa intay hawsha ku guda jirtana waxay ka fikiraysay siday eedadeed uga qarin lahayd inay tagtay guriga Sacdi waqtigaana Xamdiya sidoo kale nafteeda waxay u sheegtay maalinta jimcada xitaa hadday eedadeed ka cudur daaratay inay shaqada qabato inay ayada aadi doonto si ay u soo aragto wiilkii ay jecleed Sacdi goob kalena waxaan aragnaa Kariim oo iskoolka ka soo laabta oo wadada maraya waqtigaana ilmo wadada ku ciyaaraya ayaa asaga weyd inuu la ciyaaro laakiin kamuusan yeelin dhinaca kalena Sacdi asaga xitaa wuxuu ka fikiraya Xamdiya asagoo la ashqaraarsan kulankoodii koowaad iyo gabadhaas siday u qurux badnayd ayada mar walbana wuxuu dib xasuusanayay daqiiqadihii cajiibka ay soo wada qaateen labadooda sidoo kalena hadda wuxuu in badan ka fikirayay sidoo gabadha dareenkiisa ula wadaagi lahaa uu jacaylkiisa ugu sheegan lahaa asaga gabadhaana aragtidii koowaad ayaan ku jeclaaday ayada ujeedada kaliya oo aan aniga leeyahana waa inaan gacanta ku dhigaa ayada si aan jacaylkayga ugu sheegto si kastaba ha ahaatee dhallinyaradan inay ishelaan way adkay maadaama nolol ahaan ay laba dabaqadood ku kala noolaayeen ayaga Sacdina waqtigaas sidoo kale wuxuu ka baqayay hooyadii inuu la wadaagay arrinta gabadha maadaama uu sii og yahay in loo diidayo asaga mar walbana niyadda ayuu ku hayay halka Xamdiyana ay wiilka habeen kasta ka fikiri jirtay ayadoo leh allow haddii aad Sacdi ka dhigi lahayd xidigahan oo kale habeen kasta ayaan daawan lahaa asaga subaxdii xigtana waxa ayada kicisay habaryarteed ayadoo kule waan daahnay sababtoo ah maanta waxaan ka shaqaynaynaa guriga Faadma maxaa yeelay meesha xaflad ayaa ka jirta si kastaba ha ahaatee Xamdiya maadaama guriga Faadma ay deris ahaayeen Sacdi waxay rajaynaysay inay sikadiisa u aragto wiilkii ay jecleyd ayada intaa dabadeedna Xamdiya waxay la quraacatay abtigeed laakiin waqtigaasi lama filaana Fariida ayaa ayada ku tiri soo kac waxaan ka daahnay shaqada intaa kadibna si degdeg ah waxay u aadeen guriga Faadma intay waqtiga wadada marayeen Xamdiya waxay rajaynaysay inay mar uun aragto Sacdi waqti kadibna markay guriga tageen waxay bilaabeen inay martida cabitaanka u qaybiyaan ayaga martidaana waxaa ka mid ahayd Sacdi Xamdiyana markay naagta arag aad bay u baqday sababtoo ah waxay ka baqaysay Sacdi inay hooyadeed u sheegto gabadheeda inay shalay guriga ku soo booqatay ayaga wax yar kadibna Sacdi si lama filaana waxay ugu yeertay Fariida ayadoo kule halkee joogta Xamdiyana waqtiga aad bay u cabsatay sababtoo ah waxay ka baqaysay in arrinteeda la sheego waqti kadibna Fariida waxay jikada ugu timid Xamdiya ayadoo kule alaabta dhaqitaankooda ma dhamaysay laakiin Xamdiya ayaa habaryarteed u sheegtay inay wax yar si ay u dhamayso hawsheeda intaa kadibna waqtigaasi lama filaana Xamdiya habaryarteed waxay u siisay lacagtii ay soo shaqaysay oo dhan laakiin Fariida ayaa u soo celisay ayadoo kule lacagtan hadiyad ahaan ayaan dib kugu siiyaa adiga sidoo kalena Fariida waqtiga waxay ayada u sheegtay in maadaama ay la shaqaynayso marmarka qaar ay lacagta ay soo shaqeeyaan ay qayb ka qaadato ayada muddo kadibna markay guriga ka soo laabteen Xamdiya habaryarteed waxay weydiisay inay suuqa ku leexdaan si ay dhar cusub u soo iibsato maadaama ay lacag haysato markay dharkaas soo gateen kadibna waxay ka soo laabteen meesha muddo kadibna waxaan aragnaa Xamdiya oo nadiifinaysa qaybta sare ee dabaqa intaa dabadeedna waxay qabatay dhammaan hawshii guriga taalay oo dhan habeenkii markii la gaarana qoysku si wada jira ayay u wada casheeyeen ayaga si kastaba ha ahaatee abtigu markuu Fariida weydiiyey xaalka Xamdiya
waxay u sheegtay maqribkii inay seexatay maadaama ay howl badan maanta soo qabatay ayada. Si kastaba ha ahaatee Xamdiya wakhtigaa intay hurdaysay inkastoo ay gaajaysnayd waxay aad ugu dhereraysay in berri la gaaro maadaama ay rajaynaysay inay jacaylkeeda aragto ayada. Subaxdii xigtana Xamdiya markay hurdada ka soo kacday aad bay u faraxsaneed ayada maadaama ay maanta arkayso jacaylkeedii Sacdi. Intaa kadibna waxay hortagtay muraayadda ayadoo leh haddaan haysan lahaa lipstick waan marsan lahaa si aan u cajabiyo Sacdi. Subaxdaana Xamdiya aad bay isku soo carfisay iyadoo soo qubaysanaysa. Sidoo kalena waxay soo xiratay dharkeedii ugu cusbaa oo ay haysatay ayada. Fariidana markay dharkaa ku aragtay way ku qaylisay ayadoo kule dharkan wuu cusub yahay maadaama aan shaqo qabanaynana wuu koo hallaabayaa adiga. Si kastaba ha ahaatee Xamdiya waxay sheegtay maadaama nolosheeda oo dhan ay shaqo tahay waa inaan labistaa si aan ugu ekaado qof qurxoon. Waqti kadibna Fariida iyo gabadha waxay aadeen guriga Sacdi. Intaa kadibna intay labadooda wadada marayeen Fariida Xamdiya waxay weydiisay sababta wejigeeda ay hurdada uga muuqato. Haddii aad daalan tahana maxaa iigu sheegi weysay? Sababtoo ah shaqada aniga kaliya ayaan aadi lahaa adigana guriga ayaan kaaga soo tagi lahaa. Laakiin Xamdiya waxay u sheegtay inay jinni ka fiyowdahay ayna doonayso inay hawshaa la soo qabato ayada. Waqti kadibna markay gurigaa tageen Sacdi ayaa ayaga albaabka ka furay wuxuuna ku yidhi maxaa mina subaxa noogu soo kallahdeen adinka. Fariidana isla markiiba waxay u sheegtay waxaan u soo dhaqsannay si aan guriga u nadiifino. Sidaa darteedna wuxuu ayaga u sheegay inay beerta ku sugaan si uu ayaga ugu soo yeero Sacdi. Wax yar kadibna naagta ayaa u timid ayaga. Xamdiyana markay naagtaa aragtay sababtoo umaysan diyaarsanayn sidii qof maanta xaflad dhiganaya ayada. Intaa dabadeedna naagta waxay ayaga u sheegtay inay jikada galaan cabaar kadib ayaana idiin imaan doonaa adinka. Waqti kadibna way u timid ayadoo kule dharka waan idiin diyaariyey marka waxaan idinka rabaa inay si degdeg ah u dhaqdaan. Muddo kadibna markay dhaqistooda bilaabeen waqtigaana Fariida Xamdiya waxay ku tiri dharka si fiican u dhaq. Isla markiina Xamdiya habaryarteed waxay ugu jawaabtay hawsheeda si fiican ayaan u qabtaa sababtoo ah waan ku raaxaysanayaa aniga. Intaa dabadeedna Xamdiya waxay qaaday dharkii ay dhaqeen si ay sagxadda sare ee dabaqa ugu soo warto ayada. Gabadhaanna intay dabaqa sare fuulaysay aad bay u murugaysnayd maadaama intay gurigan joogtay aysan Sacdi weli arkin ayada. Intaa kadibna Xamdiya dabaqa sare ayay fuushay si ay dharka meesha ugu soo warwarto ayadoo in badan ka fikiraysa Sacdi. Laakiin intay dharka meesha ku warwaraysay si lama filaana meesha waxay u aragtay Sacdi oo goobtaa hurda. Intaa kadibna waxay bilowday inay dharka ku kor jafto ayadoo rajaynayso inuu dhawaaqa maqlo sidoo kalena uu hurdada ka kaco asaga. Laakiin waqtigaasi lama filaan ayuu hurdada uga soo kacay. Markuu indhaha soo kala qaadana wuxuu arkay Xamdiya oo goobtan joogta. Intaa kadibna wuxuu ku yidhi sidee goobtan ku timid adiga? Xamdiyana way ka aamustay. Laakiin waqtigaasi lama filaan habaryarteed ayaa ayada ugu yeertay ayadoo kule iga soo doon qaybta kale ee dharka si ay u wartay adiga. Intaa dabadeedna hoos ayay u degtay ayadoo qaybtii labaad ee dharka ka soo qaadaysa habaryarteed. Intaa kadibna dharka ayay mar kale soo qaaday si ay u warto. Markay kor ku soo laabatana Sacdi ayaa gacanta ka qabtay asagoo ka dhigaya dharkii ay siday sidoo kalena indhaha ayuu indhaha u saaray asagoo si dareen la u fiirinaya gabadha. Xamdiyana waqtigaa waxay u ahayd waqti cajiib ah maadaama markii ugu horreysay labadooda ay si gooniya u wada kulmaan ayaga. Habeenkiina markay guriga ku soo laabatay intay jiiftay oo dhan waxay ka fikiraysay wiilka iyo waqtigii ay soo wada qaateen maanta. Sidoo kalena Xamdiya waqtigaa waxay dib u xasuustay wiilka markuu gacanta ka qabanayo uu guriga soo gelinayay. Meeshaana waxay ka dareentay siday wiilka u jeceshahay oo kale inuu asna u jecel yahay. Intay sariirteeda jiiftana gabadha sidoo kale waxay sawirtay ayadoo wiilka xaas u noqotay sidoo kalena dahabka arooska loo xiray ayada. Sacdina ay sodoh u noqotay sidoo kalena ay gabar shaqaalaha u shaqaynayso ayada. Qaybtii saddexaad ee filimkeennana meesha ayay ku soo dhammaatay. Haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan laag saar si aan ugu soo darno qaybaha kale ee filimkan xiisaha leh.